علينا كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Allah subhanahu wa ta'ala oo noo soo geliyo barnaamijkan inuu noo qabsamo ama isugu nimaadno marka xiga waxaan u mahad celinayaa ururka Hangubeed oo barnaamijkan si weyn uga qayb qaatay in uu qabsoomo ama si hirgelintiisa dhanba lahaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madbacadda Fast Design oo iyaduna ka qayb qaadatay daabacadda boorka waxaan rabaa inaan ugu dambaysiiyo dhammaan marti sharafta qiimaheeda kala duwan qolaha waliba waxaan ku salaamayaa nasabka iyo maamuuska ay leedahay intaas kadib waxaan rabaa inaan nin odayba hadda ka hor sheekeeyay ninkii odayga markuu sheekeeyay wuxuu yiri saddex qof ba abaalkooda ma gudi karo yiri qof wuxuu yiri meel rag fadhiyo ama meel dad fadhiyo intaan ugu imid fadhiga ii balaariyay oo iga sikada calaashan boos isii aan fariisto anoo rag u imid qof salaantayda u soo maray buu yiri dhul dheer oo inuu salaamo darteed igu yimid iyo qofka saddexaad oo ah qof in aan wax ku biiri kara baday oo wax uun i weydiistay macnaha saddexaas qofba abaalkooda ma gudi karo yiri waxaan u maleynayaa inay saddexdii qodob caawa halkan ku cad yihiin oo dad fara badan ay dhul u soo mareen sidii barnaamijkayga iyo casuumadeeda u ajiibi lahaayeen in booskii salaanta oo isna barta ku cad yahay la joogo salaantii uu qayb ka yahay iyo in wax siintii ay la mid tahay inaad suugaan u soo doonateen waxay ka mid tahay suugaanta quudka haddii cuntadu ay tahay quudka ay sheeg jirka suugaantu waa quudka maskaxda horta soo dhawaada dhamaantiin aad baa ugu faraxsanahay barnaamijkan waxaan rabaa inaan caawa suugaan noocyadoodu kala duwan tahay in aan dhex galo waxa ka raali ahaanaysaan in intii ra'yigayga aan soo bandhigayo oo wax ka badan aan dhihi karin in wixii awoodeyda ah oo isku day aan sameeyay hore ah ay tahay waxa aan soo bandhigayaa qof walba uu gabiyaa dadka gabiya ayaan baal kaga jiraa anigu maqasheen gabayow nin dhaa yiriba waa kugu dhawaaqay kuwan dhoohan baa ku baxo doorshay dhalankaaga markaas uu dhageystana ku nacay oo dhirfoo tagay intaas qofba meel ka gelaya bahashi oo qofba meel oo iska dacodocaysanaya marka bal caawa iyo calnuur muxuu soo bandhigayaa muxuuna keenayaa suugaantu iyadu waa dhowr qof kaligeed mar dhiirigelin bay ka hadlaysaa mar dhaqan bay ka hadashaa mar jacayl bay ka hadashaa mar falsafada iyo aragtiyo gooni ay ka hadashaa mar wacdi bay ka hadashaa mar bas ay u hadlaysaa waxa laga yaabaa in dadka qaar ay yiraahdeen war qofku afaf badana isagu mana wacdinayay mana dhiirigelinayay ma mucaashaqba ma wadaniba ma dhaqan yaqaan ba qofku suugaantu hadba meel bay ka hiridaysaa gabayadu waxaan ugu horeysiinayaa maanse la yiraahdo dardaaran maansadan runaantii mar hore waa duubay laakiin iyadoo qoraal ah duubay oo muuqaal ama duubin waxyaabo ku jiro xogaa in la jilciyo u baahnaa ayaa jiray sidaas aawadeed ayaan maanse walba dib ugu dhigtay caawana waxaan jeclahay maansooyin fara badan oo aan ka qisayn inaan meeshaan qaarkood ku sheego maansadan waa dardaaranna wuxuu la dardaarmaa qof si uun markaa wax ka yihiin dardaaranku waxa weeye waxa ugu muhiimsan oo maansadan ku jira ayaa wuxuu yahay waqti ka faa'iidaysashada tuugada hantida xadda haddii aad taqaaneen waxaa jira tuugo kale waxay yihiin tuugada waqtiga xadda dadka jecel dadka kale wuxuu inay cunaan waqtigay xadaan kasoo ku inta qofka xadinba sababtu waxay tahay hanti adigu aad 2 isbuuc ku shaqeynaysay ayuu rabaa asoo inuu hal saac ku helo wasoo koobay moogta adoo 2 isbuuc ku shaqeysay ma bila ku shaqeysay wuxuu isku dayayaa inuu qofkii soo koobo marka waxay tiri maansadu in dooraba jiiftadii iyo tixihii waataan dabro dibnuhu curinteedii iyo kashkii diideen qalbigu ha yeeshee in dadoo waxba ay dirqiyahayo dareenka hadal yiri doolaal weeyaan waqtigu ma dago daar iyo qasriye intaa way isdaba socdaa
درسي 10 buu dhigaa dadku u akhriyayaan damiiniin baa u badan waqtigu sida uu meerayo dadku kama wada faa'iideystaan taas waxay noo cadaynaysaa in ay damiiniin u badan yihiin dadku damiiniin baa u badan qish bay wax ku doonayaan ka diiday ayaa la oran haddana way doodayaan dow maaha ayaa la oran dabeecadna waa ka saas qofka rabaa in uu hanti uusan shaqaysan si fudud ku helo waa qofka qishka wax ku doonaya noloshii uu qishaya waxyaaba la qishay waxyaaba uu mucjisan waayada ka diiday ayaa la oran haddii maanta lagu qabto lagu xiro lagu ciqaabo laga celiyo haddana way doodayaan maxaa la xiriyaa maxaa nolol dhibaya maxaa saan loo yeelaya maxay su'aal ka diiday ayaa la oran waxa marna suura galin haddaan dabuubtu iyo murtida tusaale yar kuugu daro duuga ahayd dariska kii aad la taal diintiisu kuu dhigaa ee dooro dadkaad la socon dariiqa kuwaad la mari la cunay dacaamka iyo anfaca dariskaagu diintiisu ku baraabaa la yidhi inaad qofka aad la soconayso adigu go-aan ka gaarto adiga iska leh ma waxaad raacaysaa qof duug ah ma waxaad raacaysaa qof sheekh ah ma waxaad raacaysaa qof akhrista ah ma qof garaad badan baad raacaysaa ma ciyaartooy baad la saaxiibaysaa yuu yahay qofka aad la shaacabtaa yuu yahay qofka aad la sheekaysataa yuu yahay qofka aad la socotaa qofkaasa badanaa ku hagaya adiga anoon kugu daalin hadal xil baa duudkaaga yaal dareen togan baa nacfile qorshaa kugu haga dariiq go-aan baa kugu dirqiyaa halkaa doonaysa oo waxaa dallacdaa markuu hankaagu diyaar u yahay qof aan isagu u diyaarsanayn ma aragteen dad intaas oo sano wax lagu akhrinayo oo aan isbedelin ayagan diyaar u ahayn waxaa dallacdaa markuu hankaagu diyaar u yahay ha noqon damiir laago baas ha noqon damanan waxgaran madiira ha noqon fashila adaa ah naftiisa dire adaa ah iskiis dallace adaa duuliye ah sare hawada ku dawaafi kara adaa ah dabaaliqaan badaha mara doon la'aan adaa dhul mareen ah diran duur iyo garanaya beled adaa ah dantiis yaqaan cid adiga noloshaada kaa og oo bini aadani ma jirto marka adigu inaad darawalkeedii noqoto oo aan lagu wacdin isku day da wacdigu kii diinta aan sheegay maahan wacdigu waa fara badan yahay man saddex xisri iraan ku xujinaya laakiin marka hore aan bar ka sheekeeyo had dalxiis waa dalxiisna waa dalxiis soos maaha ayaan baa halkan ka baxay lagu casuumay aniga rag kale barnaamij bandhig buugaageed oo ka qabsoomaya laascaanood garawaan ka degnay dhul fara badan oo suugaanta lagu sheego oo maqli jiray oo qurux badan laakiin ma aanan mari jirin soo maaha waxaan nasiib u yeeshay marka inaan gaari caadi wadada ku marno garawe ilaa laascaanood tagnay barnaamijkii qabsoomay dhulkii waxaan soo arkay dhul fara badan dooxooyinkii nugaal ka mid yihiin buurtii sayidka laascaanood ku taalay ka mid tahay waa dhaafayo waxaan sii maray dhulkii gaaroodi laisku yidhaaho dhul fara badan isku ah waxaan sii maray dhul ay deerada iyo cawshu joogto oo gaariga anagoo saaran arkaynay sagaalada waddada qarkeeda ay joogtay buurihii waxaan sii marnay aan dhan kasii tallaabnay boholaha xargaga waxaan ku maqli jiray anugu shaaka xariire ma og tahay boholaha xargaga oo boholo caana ah buurihii waxaa dhan iga muuqday shiila madow waa dhaafnayo burcaan tagno dhul taariikhi asna ahaa waa sii dhaafayo berbere waxaa ka sokeeya sheekh dawgii sheekh dhulkii sidaa u meermeersanaya buuraha ahaa daruuraha ay isku daran yihiin iyo buuruhu oo gaariga haddaad gacanta kala baxdo qabow noqonayso xilliyada qaar xitaa waxaa la ii sheegay daruuruhu inay waddada soo degaan oo gawaaridu si ay u maraan layrarka hore waxaa loo marayaa baa la yidhi xayrta midhaa daruuruhu ma qabtaan waa cilmi qofka dadku ay ka bartaan deegaanka caqabadaha cashara laga bartaa micnaha waxaan sii maray berbera waxaan sii marnay dhul tagay hargeysa oo iyaduna taariikhdeeda leh waxaan kor uga jeeday buurihii naasa hablood waxaan sii dhaafay waxaan tegay ilaa iyo gabiley kuma hakan laakiin waan dhex maray ilaa iyo boorama jaamacaddii camuud buurihii waxaasoo dhan aan soo arkay kadibna waa kusoo noqday marka waxaa iga soo baxday maanse la yidhahdo dalxiis oo ilaa dhul saanin waa kuu dhiman yahay awel waxaan aqaynay anugu meelaan ku dhasho la yidhahdo dooxooyin la yidhahdo dooxo burug iyo burshiilood oo laba buurood si waaweyn ay dooxo ay sameeyaan oo marka ay roobsadaan quruxdooda aad la yaabayso iyo dhul kaloo la mid ah laakiin inay waxaas ii dhimayn ma malaynin
mararka qaarkood dadka dhulkooda waa buunbuuniyaan moogta waxaan salaamin dhac waxaas oo buunbuunisay camaariya caad oo kale weeye hore u soco waa noqon diideen marka dhulka qaarkood waa kasii cajiibsanaa dhul wuxuu ahaa qadiim ah oo aan la yaabay maansadan marka waxaan kaloo la yaaba waxaa ka mid ah dadka jooga badanaa waxaa laga yaabaa maamul goboleedada qaabka siyaasadda loo nool yahay inay dadka ay si aragti uga haystaan laakiin waxaan arkay inay dadkii dhan Soomaali yihiin maxaa dhacay laas caanooda tagnay dad baa nagu soo dhaweeyay mutal baan dajiyay waxaan cunay waxa cabnaan la siiyay burcan tagnay qolaa hotel dajiso magaalada ugu wareejiso waa ka tagay cid aan isku qabiilna ma jirto waxaan ka sii tagay Hargeysa niman filatiisan dajiyo internetka xitaa wifi ii geliyay maana isku qabiilba ma ahaynba isma dhawin sii socday ilaa iyo boorama dadkii yihiin marka maansan noocaas oo dadku meel ay joogaanba inay gobonimada Soomaalinimada ka sameeyeen dadku dhiig inuu mideeyo ayaan kaga hadlayay waxay tiri maansadu dalkii ciideena hooyo ilaa dacal dirkeenu habaabi maayo magacu doorsoomi maayo dadkuna Soomaali weeye hadday dani meel ku geyso oo aad degmadaada dhaafto duruuf kugu heeri mayso diihaal ku mutaysan maysid cadceed kugu diiran mayso dugsiyo hoy waayi maysid cidlana ku dayoobi maysid hadday dani meel ku geyso way haddii kasta maaha marka wuxuu yiri tahriib wax la doorto maaha dalkeena dhaama kooda dalka shisheeye tahriib wax la doorto maaha dalkeena dhaama kooda kana daawasho ku fiican ishii mardaydan ka daalin dul iyo waa dooxa miiran ugaar bays daba maraysa deeriya cool baan la waayin sagaara dirkeed ma suulin kun baa jira iga dahsoone firkii daba taag ma guurin gamaan baa daaqa yaab leh waxa dacal jooga geeli duunyo dhami waa ka muushe indhaha ayaan laga daboolan waxaasoo haddaad hal mar u wada jeeda ka waran sagaaro iyo deero iyo faras iyo geel meel isla daaqeeda u wada jeeda ka waran waa wax macnaha sidoo wada qurux badan marka waxyaabo kale oo cajiib oo dhulkeena ku yahay jira oo dad fara badan laga yaabo inay ku baraarugsanayn ereyadu ma adka laakiin wadul maray wuxuu leeyahay markaad doob tahay barbaara markaad guur damacdo fiican waxaad daydaydaa dhigaaga gayaan dumaroo jinka ah gashaanti dareenka caashaq durbaba garatee wanaagsan dabciyo welibana dulqaadsan oo aad reerkeed ka doonto duqii dhalay kuu hibeeyo si kastood ugu dadaasho inta dul ku sameeyo dal kale kama soo helaysid intaad gabar adoo iska socda intaad gabar qurxoon aragto oo la qabsato saanta iyo socodka oo isfahamtaan oo isii salaantaan oo dhul isla sii martaan kadib odaygii dhalay iyo wixii aad ka doonto oo lagu siiyay halkaas wiidax kula tiraada waxa yarka dal kale laga soo heli maayo huma kalo meeshan waxa ku jira dadka reer miyiga marka ay kaligood socdaalaan waxa ay u baahdaan cid kale ay la hoydaan hadii ay gaari waayaan meesha ay rabeen adiga oo iska socdo dhul buuraley wax lama degaan oo ku cawaystay baa marka dambe waxaad maqlaysaa meel aan dhaweyn cid dabkoodu ka iftiimayo ama waxaad maqlaysaa waxaraha u jooga maaragtay neef mid kamid ah jaaq bidhigtaadu qaadaysa dhanka ka xigta waa xamar weyne ay ka sii xagay liido kale cid degan wadana ku socota wadada marka al-mukarrama kale waxa u baahan tahay marka ku leexato si cidaas ku hoydo asluub baa jira cid marka u tagto hadana loo weydiisto sida ay u hoyanayso sida u joogto aqalkooda gali maysid iridana ka soo istaagi maysid qolo walba waxay leeyihiin macnaha hab loola macaamil leeyihiin marka humaagan wuxuu ku leeyahay adoo dalan dool socdaala habeen dumay aaska duugmay dul iyo soo jiiray dooxo adoo daranyaysan gaajo adoo daalo haraadan dugaagana weheshanaya qoys degay dacalkiyo agtaada dabayshu cod ay la haaday kolkaad maqashee dareento dariiqa inaad ka baydho dabkooda iftiimay raacdo adoon didin xoolahooda aqalka duudkiis istaagto salaan dabadeed ihooya warkaagii ugu dambeeyo markii darin aad u fiican dugsiyo golo meel ka oodan dig oo wiil kuugu siiyo duqii reer kuna yimaado inaad tahay xoolo markuu ku deexda sheeko inaad tahay xoolo doon iyo inaad degmo kale u jeeday markuu saddex soon su'aalo sarbeeba dushaada dhoobo
markaa dulmar ugu samayso wuxuu daaran yahay socdaalku dib aqalkii uu u aado oo uu doobi xoor la keeno neef doorna intuu bireeyo dubaax soo dhigo agtaada markay baahidu ku degso oo uu daalkii dhammaado dariiq saxa kugu tilmaama si kastood ugu dadaasho intaa duul kuu sameeya dal kale kama soo helaysid intaas duul kuu sameeya asluubka waxaa ka mid ahaa ilaahay remiiga ah waxaa laga yaabaa meeshu magaalo maahan albaabka uma xirnee islaantu inay go' la-dahay saa u socoto albaab la gargaraaca ma leh irid haddaad soo istaagto daydka haddaad soo istaagto hore waxaa u baahan tahay aqalkaa kugu muuqda islaantu meesha dab ku shidanaysa isaga waa lasa kor dhacayaa moogtaha laakiin isluubku wuxuu yahay aqalka gadaashiisa la istaagaa nabad ma sheegteen waa nabad halay hooyo kadib baa lagu wareysanaya inta Google meel lagu geeyo oday ku yimaado ku leeyahay war haye waxaa jira dad socota ah ama qaraabo ama aan qaraabo ahayn waa la wareystaa marka ninkii qaraabo asaga sheegay wuxuu yiraahdaa war aniga waxaan ahayn reer hebel oo hebel ah inaad beesha degantaan ku ogaa waa guursaday waxaan ka rabaa xoolo ama wuxuu yiraahdaa ma ihiye waxaan ahay nin dad yaro niman xoolo haysan baan ahayo nan iska xoolo doona muslim ilaahay cid ka soo kaabaysan xoolo ka ribi markaas uu qofku neef siinaya gobonimadaas marka uu weydiinayaa hadduu yiraahdo warnay xoolo doon ma ahayn anigu waxaan u socday dhul arkaa dheer calina ka dheer ah caawani hooy tuu shaahiyo hilib iyo neef u qalabada neef buu u qalayaa markaasuu subaxina tilmaamaya uu leeyahay wadadan ka baxay geynaysaa meel hiblaayo lagama helo marka wadamada kale adoo socda in albaab aad gargaraacday laga furo habarteeda ka tahay haddaad doolaale aado calaashaan dibad u dhoofto kalluun kama daban karaysid kalluun kama daban karaysid dalxiis uma bixi karaysid dunyana ku ilaashan maysid xil dowlana qaadi maysid dalagna ku abuuran maysid sidaa doontana ma yeeshid xil dowlo markaan leeyahay waxaa laga yaabaa adoo annaga hadda sideena annagoo goofka sidaan ogaanimada laga yaabaa inaan shaqooyin waaweyn loo dhiiban boogta laakiin halkaas inaa baasaboor Mareykan waa gartay mid Ingiriisa haye mid Faransiis inaa qaato ma ahane adoo ka yimid Muqdisho iyo Soomaaliya toos uga yimid cidna wax ku dhiiban mayso waa in lagu soo bedelaa oo qof kale soo noqotaa horta